waxaynu wax yar ka soo qaadan doonaa mid ka mid ah xusdaymeedyada ugula yaabka badan, ama haddii si kale aynu u dhigno, roobdoonta ugula yaabka badan adduunka. waxaa sanad kasta marka la gaaro bisha May oo ah waqtiga sida rasmiga ah ee roobka uga curto dalka Mexico, waxaa inta badan dadka reer miyiga ee ku dhaqan dhulka beeraleyda ah ee dalkaasi ay sameeyaan isu soo baxyo roobdoon ah. Ma ahan mid Alle lagu baryayo, laakiin waa caado dhaqameed haweenka ku dagaalamaan oo ay si ba'an isaga dhiijiyaan. waxaana dadka beeraleyda ah ee Mexico ku dhaqan aaminsan yihiin in sida haweenkooda ay isaga dhiijiyaan uu roobka ugu da'ayo. haddaba intaan u gudagelin, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar, gabaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya hele barnaamijyadeena. hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid. meelaha sida weyn looga sameeyo dagaalka dumarka isaga dhiijiyaan ayaa waxaa ka mid ah degmada Nahao, taas oo ka mid ah meelaha ugu caansan wax soo saarka dalagga beeraha ee dalkaasi Mexico. fagaaro weyn oo loogu talagalay xusdiimeedka dagaalka ah ee u dhaxeeya haweenka ayaa la isugu soo baxaa, waxaana marka dadka badankoodu ay yimaadaan goobtaasi lasoo xulaa haweenka ugu xoogga waaweyn, kuwaasoo dagaal aan waxba la iskula harin isku wajaha. xusdiimeedka roobdoonta oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugula yaabka badan, qarniyaal badanna ay samayn jiray dadka reer Mexico, ayaa ku bilaabma socod qabiil walba ku soo mara jidadka magaalada lagu qabto. waxayna socod ku soo dhex maraan iyagoo cunooyin fara badan dumarkoodu madaxa iyo dhabarka ku sidaan, halka ragguna ay qoobka ciyaar ku sameeyaan ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka u ah. balse marka lagu soo wada shumo fagaaraha ayaa la goglaa cuntada oo u badan wax soo saarka dalagga beeraha ee deegaankaas ka baxa, sida bariiska, galleyda, muuska, khudaarta iyo kalluun aad u tiro badan, kuwaasoo sidii wax la nacay oo kale loogu qubo fagaaraha. intaas kadib, marka cuntada lagu qubo fagaaraha ayaa la isku soo saaraa haweenka kuwooda ugu xoogga waaweyn, kuwaasoo iskala daala feedh iyo dharbaaxsho, lamana kala qabto ilaa iyo mid walba dhiigga ka qulqulo. dagaalkan dumarka la isku soo xulaya ma ahan mid lagu kala guulaysto, hase yeeshee waa xusdiimeed ay dadka deegaankaasi aaminsan yihiin in marba sida haweenkoodu isaga dhiijiyaan roobka ugu da'ayo sanadkaas. sida dhaqanka u ah tartan kasta oo la ciyaaro ama lagu dagaalamo, waxa uu leeyahay taageerayaal iyo qaab dadka ka qaybgalaya lagu dhiirigeliyo. hase yeeshee dagaalka roobdoonta ah ee haweenka reer Mexico waxa keliya oo lagu dhiirigeliyaa inay dhiig badan iska daadiyaan. inkastoo sida ay aaminsan yihiin in dagaalka raggu soo dhexgala mamnuuc ka tahay, haddana waxaa mararka qaarkood dhacda in xaaladdu faraha ka baxdo oo inta rag iyo dumarba xamaasadu qaado gowda la iska saaro. mararka qaarna waxaa dhacda in raggu marmar soo dhex galaan marka dumarka si ba'an isku garaaci waayaan ee ay iska dhiijin kari waayaan. run ahaantii waa arrin la yaab leh, waana wax aad u xun, inkastoo ay iyagu u arkaan inay wanaagsan tahay sidaasi. waxaana intaas inoogu eg barnaamijkeennii maantay oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Mucallim Maalto. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay rukuma channelkeena Hogan 24 Media, adigoo subscribe-na saaraya gambaleelkana furanaya si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino channelkeena. hana hilmaamin inaad la wadaagtay asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.